ninkan aad u jeedaan waa Maqadin Abiib isagoo dhulka xaaqa oo nadiifiye ah ayuu kumanaan kun oo dollar helay kadib maxaa dhacay isagaa noo sharxaya kadib waxaa dhacay dekedaan ka shaqaynayna xamaali baan ahayn iskoob baan haysanay isaaq aftax baan lahayn xagaayaa soo daadatay gurihii dhinacii xagaayadu ka soo daadatay dhinaceedii kalaan marray dhinacii kale anagoo joogna oo gabaad ka dhiganayna oo tiixiina nahayo yaanbac waxaan arkay bacdii baan sidhi waa qashina qaad bacdii markaan arkay inay lacagi ku jirto lacagtii dad dhexdii bay noqotay oo waan tiriyey lacag culus oo waxay noqotay dollar ah waan tiriyey konton iyo konton bay xuneed $100 bay noqotay $100 bay noqotay konton iyo konton kun ها konton iyo konton kun bay noqotay jeebkaan geliyey waxaan idhi ilaahayow haddii xalaal ahayd addoonkii lahaa u keen xageed aad marka waxaan soo aaday magaaladan soo aaday gurigeygaan imid marka lacagta xageed ku hubsatay inay $100 tahay dekada dhexdeedaan ku soo dhagxaantii waaweyn jamalka intaan dhinaca kale xagga badda uga dhacay oo laba dhagax ku gabaday baan tiriyey sababta oo adii hadda ka hor inta ay leg ma arag waan yaabay lacagtii waan xareeyay saasaan ku soo tagay xaafadda aan ku imid 5 bari baan hayay xageed ku haysay jeebkaan ku hayay aye jeebkaan ku hayay ka bacdi meeshaan ka shaqaynayna kulan ku soo noqonay masaajid baa dekada dhexdeeda ku yaala masaajidkii baa yabooh la isaga taagay yaallo lacagta ayaa arkay abaalgud baa la siin hayaa anigana qalbigayga markii horeba waxa ku jirayba ilaahay oon iriba markii hore ilaahay addoonkii lahaa ha u fudeeyo ha u keeno aye guri igama gelin waan hayay adu ninkii lahaa masaajid magaalada ku yaalaan iska helay nin ganacsato ahaa waan siiyey anigana wixii abaalgud ahaa uu siiyay man qaatay imisa ku sii 5 kun buu siiyay ما شاء الله واقفتي ما فيلي اسغا لعقتاس ان مرنا ما ولا فيلي هاي ما شاكيستين هذا شاكيسنay oo wuxuu shil waqtigan caadiga hadda ku jiro lacagta inta aad ninkii helay ma soo celin hay'adan islaam oo hagaagsan baa tahay khayr allah ku sii xiriir baan yeelanay oo ninkii xiriir baan yeelanay oo lacagta darteed baa xiriir ku yeelanay oo wax badan ii tirtay adigu meesha nadiifinta aad ka shaqayn jirtay imisaad ka qaadan jirtay waxaan ka qaadanayay 170 marka dhulka nadiifin jirtay iskoobada dhulka ku xaaqi jirtay oo qashinka kolkaan soo ururnay isku rogaan ku rareeyay soo nasiib ma ahayn adigoo dhulka xaaqa oo $170 qaatay inaad $100,000 hesho هذا waa nasiib ha noqotay ma lahayn xaq bil aadan baa kadibna qalbigayga ruuc baa ku dhacay in ilaahay qofkii lahaa hadii lacag xalaal tahay in ilaahay uu siiya ayaan ku duceynaya markaan salaada ka baxo oo odhanahay ilaahay uu haday xoolo xalaal oo xaqiisa ay tahay ilaahay uu addoonkii lahaa u soo badbari adiga lacagtii kuugu badneed abid hesho dollar ahaan imisay ahayd $100,000 baa maya marka $100,000 laga soo tago lacag ahaan waxa ku soo galay adiga aad leedahay taa waxay ahayd lacag aad nasiib dhulka heshay qof kale lahaa lacag ahaan waxay soo galay waxa lacagta ugu badan waxa ahayd $1,000 baa aan leeyahay anu mulki ahaan aan leeyahay markaa ninka abaalgudka 5 kun ku siiyay maxaad ku qabsatay wax badan ma ku qabsaday wax badan bay ii tirtay